نبتقليو أو عثمان حسنة. نبتقليو أنا حسين محمد. يا إسماعيل حاج عبدي. يا أحمد إسماعيل سمطر. raggii hore ee BBC-da ka shaqayn jiray kuwa aan anigu kollayba dhawaaqooda aad u jeclaysto waxaa ka mid a allahu naxariistee mustafa xaaji nuur iyo cismaan sugulle labaduba waxay halkan ka shaqayn jireen isagoon af soomaaliga la qorin si aan codkoodii bal u xasuusanno waxa aan marka hore idin maqashiin doonaa cismaan sugulle oo ka warramaya warbixin laga qoray xidigta jubiter 25 sano ka hor. xidigta la yidhaahdo jubiterka si aada ayay qorraxda haddana uga fog tahay sida xidigta maaska waana ay qabowdahay qabowgeedu waa mid aan loo adkaysan karin korkeedana waxaa la sheegay biyo inay ka habayaan in 1300 oo kol ayay dhulkan aynu degannahay ay ka weyn tahay in ka badan 300 oo kol ayayna ka culus tahay sidaa awadeed ayaa la sheegay waxaa laga sameeyey inayan cuslayn oo ay khafiif yihiin nimanka cilmiga sayniska kuurka u gala oo uu dooxay waxay sheegeen dhagax inay ka samaysan tahay oo laga helo bir aan badnayn ee midda macdanta ahi waxaa la sheegay inay ku soo wareegsan yihiin baraf qabowga oo qolfa ah in 16,000 oo mayl ayaa la sheegay ballaarku inuu yahay oo culaysku uu saaran yahay qolfahu dushoodana ay midda kale ka sarrayso in 6,000 oo mayl ayaa la sheegay inay ka samaysan tahay 4 ama 5 gaas qiiqa oo midka sunka ee kala duwan qaarkood sida biyo ayuu u socdaa qaarna waa ay fadhiyaan sida barafka kaasi wuxuu ahaa Cusmaan Sugulle.